الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة، ولما بلغ مركو جاري نبينا صلى الله عليه وسلم 25 25 markuu gaaray oo sanatan min sanatin ay sanad ah. saafara nabiga waa safray ilaa busra meesha la yiraahdo ayuu u safray fi tijaratin bisababi tijaratin tijaaro sababteeda ayuu u safray. tijaaradaasoo khadiija u sugnaaday, khadiijadaasoo alfatiyati ee shaabada aheed oo dhalinta yareed. walxaal ayuu safray nabigeena sala allahu calayhi wasalam macahu nabiga la jirkiisa gulaamuhaa khadiijo adoonkeeda uu ahaaday, maysarana ah gulaamka. yaqdimu xaal maysarahu nabiga uu adeegayo calayhi salaatu wasalaam, wayaquumu xaal oo u istaagayo bimaa iladii kii canaa maagabahu nabiga suban oo doono. canaa nabiga sala allahu calayhi wasalam hu maaga uu doono, wax allaal wuxuu doono ayuu u istaagayo. fanazala nabiga wuxuu degay sala allahu calayhi wasalam taxta shajaratin, geed hoostiisa ayuu degay. shajaradaasuu ladaa sawmacati nasduura ninka la yidhaahdo makaano cibaado falashadiisa agtiisa ahaatay. nasduurahaasoo raahibin nasraaniyati nasraaniyada caabidkeedii ahay. facarafahu nabiga sala allahu calayhi wasalam alraahibu raahibkii ayaa gartay, id waqti ayuuna gartay maala ilayhi nabiga xaggiisa u leexday dilluhaa geedka hooskiisa u leexday, dilligaasoo alwaafiru ee dheeraay oo wa awaahu nabiga sala allahu calayhi wasalam uu dumay. dilligaas markuu nabiga sal allahu calayhi wasalam xaggiisa u leexday oo gartay. wa qaala wuxuuna yidhaahday raahibkii maa nazala ma degin taxta haadihi midaan hoosteedii ma degin, taasoo ashajarati ee shajarada ah, qadu hor ma degin ilaa nebiyu nebi ma ahayn, nebigaasoo duu sifaatin tilmaamo u saaxiib ah, sifaadkaasoo naqiyatin ee wanaagsan oo dahiran. wa rasuulu rasuul ma ahee, rasuulkaasoo qad xaqiiqe ee khasahu rasuulkii allaahu ilaahay uu ku gaar yeelay bilfadaa'ili dheeraadyaalo uu ku gaar yeelay, waxaabaahu uu ku dheefiyey. macnaha geedkaas hoostiisa qof oo nebi aan ahayn macnaha ma degi kara ayuu yidhaahday. iyo rasuul oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku gaar yeelay fadaa'il. uma markaas kadib qaala wuxuu yidhaahday raahibkii nasduura ahay limaysarata gulaamkii maysara ahaya wuxuu u yidhaahday walxaal qad infarada cala nabiyi oo ka gooni naqday ayaa wuxuu yidhaahday afii caynayhi rajulka labadiisa indha dhexdiisa xumratun gaduud miyaa ahaaday ayuu yidhaahday. istidhaaran liajli istidhaarin daahirsi darteeda ayuu u yidhaahday lilcalaamati calaamadii uu daahirsanaayo, calaamadaasoo alkhafiyati ee qarsooneed. calaamadii qarsooneed waa dalaba liduhuuri haadihi alcalaamati alkhafiya. faajaaba maysara wuxuu u jawaabay nasduura wuxuu u jawaabay binacam ayuu ugu jawaabay haa. faxaqa waxaa sugnaaday ladayhi ladaa nasduura agtiisa waxaa ku sugnaaday maa iladii kii ayaa sugnaaday dannahu maagaasi danna nasduurahu maaga fiihi nabiga suuban dhexdiisa uu ku maleeyey oo watawakaahu uu qasday. waxaa nabigeena sal allahu calayh wasalam uu ku maleeyey oo inuu rasuulkii ilaahay yahay, tii laftirkeeda ayaa u xaqiiqowday markuu su-aasha warsadiyo nacam loogu jawaabay. wa qaala wuxuu yidhaahday nasduura limaysarata maysara wuxuu u yidhaahday
لا تفارقه نبيها فارق وكن أهاو معه لجركيس أهاو بصدق عزم بمعنى بعزم وحال هذا قصد لجركيس كل أهاو قصد كاسو صدق نبع معنا إيه وحسن طوية يدونات معيس كل أهاو محيّل فإنه رجل كان ممن دول أيه كمديها أكرمه الله إلهي وكو كرامي أكرمه منك الله إلهي وكو كرامي بالنبوة النبي نما وكو كرامي واجتباه ودورتين دولك إلهي سبحانه وتعالى وقد ودورتين أيه كمديها إلهي سبحانه وتعالى وكرامي فإنه رجل كان ممن أيه كمديها أكرمه منك الله إلهي بالنبوة وبالرسالة وكو كرامي وواجتباه ودورتين ثم عاد النبي وصلى عبتي من غير مجاوزة بصرة سقو بصرة أن قدبين أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وصلى فرأت وحى أركتيه النبي صوبا خديجة يا أركتي مقبلا حال النبي أسوق قابلة على جهتها جهدي أسوق قابلة والحال هي خديجة في علية قولت دحديد أهاتي بين النسوة هوين دحديد حال أهاتي ayadoo qowl ku jirto oo waxa leedahay naaga dhaxdooda ay ku dhex jirta iyo markaas nabigeena sallallahu alayhi wasallam ay aragtay wal haal ayna aragtay malakaani laba malag qad haqiiqaha adalla labadi malag bahu nabiga ay u hareeyeen min duha ala ra'si nabiga madaxiisa dushiisa ay u hareeyeen ra'sigaas oo ashariifi ee sharafta lahay min duha shamsi qoraxda kuleelkeedii xageedii ugu hareeyeen oo laba malaga nabiga sallallahu alayhi wasallam madaxiisa dushiisa u hareeyeen sidaas ay ku aragtay wa akhbaraha khadiija maysara wuxuu u qabray bi annahu maysara ra'a inuu arkay dalika madkuurkaas inuu arkay waxa leedahay bi annahu maysara ra'a dalika madkuurkaas inuu arkay kullahu kullal madkuurkaas dhamaantiisa inuu arkay macna waxyaabaha la soo sheegay oo dhan inuu arkayo ee kamid tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam malaa'ikta u hareysay qoraxda kuleelkeeda ugu hareysay ay kamid tahay marka wabima alladhi kiina wa u khabray wa akhbaraha hadana wa akhbara maysaraha khadija wuxuu u qabray bima alladhi ki ay u qabray qaalahu maaga ar-rahibu rahibka uu yiraahday oo awda'a rahibki oo awda'ahu rahibkaasi oo u mudaca dhigay wa awda'ahu waxa leedahay oo uu wadeeca dhigay hu raahibki ladeehi ladaa maysara uu wadeeca dhigay oo min alwasiyati dardaaranki ah wixii dardaaranka ah ay u sheegay ayadana waxa la yiraahdo waa u khabray oo daca raahibki waxa leedahay uu wadeeca dhigay macna oo daca raahibki uu wadeeca dhigay ladeehi maysara waxa leedahay agtiisa uu wadeeca dhigay oo min alwasiyati dardaaranki ah oo muxuu ahay dardaaranka بمعنى من نهي عن مفارقته إنه فارقه وكرب لا تفارقه وكن معه مشو لها وأشيقي قديجا وأشيقي وضاعف الله إلهي أيا الله في تلك تاسو التجارة ربحها قديج فإذا يقول الله ونما إلهي سبحانه وتعالى هو ربحي أيون كرديه وأزياديه إلهي سبحانه وتعالى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم oo waxa la yiraahdo wakiil ugu ahaay ilaahay waa u laalaabay tijaaradaasi fabaana waxa cadaaday li khadiija waxa uu cadaaday bima alladhi ki waxa uu cadaaday ra'at bi'ayniha khadiijo isheeda ay ku aragtay oo min idlaalil malakayn ah labada malago nabiga u hareeyeen ah ee wama wa bima waxa uu cadaaday khadiijo sami'at ay maqashay khadiijo min maysara ay maqashay waxa uu cadaatay أنه النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلهي رسول كيس إنه يهي إلى البرية مخلوقات كحجيسا الله صادر مخلوق حجيسا الله صادر يا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليريد أو رحمة داس إلا صادري أو ذلك كافة الخلق إلا صادري سيدي لفتركيرا وعداتين وحول هذا مركب فخضبت خديجة ويدونتي هو النبي صلى الله عليه وسلم أيدونتي لنفسها نفسها يدين أدونتي أيضا دونتين لتشم إني أوريسو أي دونتي من الإيمان الرمين به نبي الله رمي ليب الرياه بمعنى رياه نبي عرفتي سإني أوريسو عرفتها سو أطيبة يطيب كعه نبي عرفتي سي وناك سنيد إني أوريسو
darteeda ayay waxaa la yiraahday u doontay nafsadeeda u doontay waa khudbaysa macnaha fa akhbara nabiga wuxuu u qabray acmaamahu adeeradiisa u qabray bima ayladii ki ay u qabray dacatu maaga ay ugu yeertay dacatu maaga ilayhi nabiga xaqiisa ay ugu yeertay haadihi midaan taasoo albarratu ee baaridaasoo attaqiyatu ee alla ka cabsiga badneed oo taqiyada ahayd macnaha alla ka cabsanaysay waxay ugu yeertay oo inay soo doontay ayay markaa nabiga sallallahu alayhi wasallam adeeradiisa u sheegay faraqibu marka adeeradii fiiha khadiija dhexdeeda ayay dalbeen lifadli liajli fadli dartiisa ay u darbeen maxaa yeelay fa innaha kaanat tusamma sayyidata nisaa'i quraysh oo dhan naagaheedii ayada ayaa sayido u ahayd wa diinin wal ajli diin dartiisa ayay u dalabtay ila waxaaliya fa innaha imra'atun haazima jalda waxay ahayd naag wanaagsan oo adag ayay ahayd macnaha diinta ku adag wa jamal wal ajli jamal qurux darteeda ayay u dalbeen wa maal wal ajli maal dartiisa ayay u dalbeen maxaa yeelay fa innaha aktharu quraysh maalan quraysh ayada xagga maalka ugu badneed la yiraahday waxa waa nasabin wal ajli nasab dartiisi ayay waxa la yiraahdo u dalbeen nasabka ayada ahayd fa innaha awsadu quraysh nasaban quraysh ayada ayaa waxa la yiraahdo xagga nasabka waxa la yiraahdo awsad u ahayd kulligaasoo min alqawmi qawmka kamid yahwaa kulligaba wuxuu jeclaaday hum madkuurka iyo jeclaaday inta la soo sheegay ayuu jeclaaday marka nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa soo raacay Hamza markaas waxay u tageen Khuwaylid ibn Asad ayay u tageen markaas waxa la yiraahday la doonay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam loo doonay wa khadaba waxa doonay Abu Talib wa khadaba waxa khudbeeyay Abu Talib ayaa khudbeeyay wa athna Abu Talib alayhi nabiga sallallahu alayhi wasallam dushiisa ayuu amaanay ba'da an hamida Abu Talib Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala markuu u mahad celiyay بمحامد ugu mahad celiyay maxaamidaas oo saniyatin ay sarayso maxaamid saraysa markuu ugu mahad celiyay iyo amaanyaalo oo sarsare markuu ugu mahad celiyay kadib ayuu waxa la yiraahdaa ilaahi subhanahu wa ta'ala ba'da an hamida Allah ilaahi markuu amaanay bimahamid saniya amaanyaalo sarsaraysa markuu ilaahi ku amaanay kadib ayuu waxa waaye nabiga sallallahu alayhi wasallam amaanay wa qaala wuxuu yiraahday huwa Muhammad والله ينكو دارتي بعد هذا مد كان بعديس له محمد نبأ أيا أصبنا خبر كاسو عظيم الإيوين خبر كاسو يحمد فيه خبر كدحديسا صراه النبي عمل كيس لغم هذه الدور تاس يا وحواي أو أمانة النبي صلى الله عليه وسلم فزوج وحا أزوجي ها خديجة منه النبي حقيس وحا أزوجي صلى الله عليه وسلم أبوها آبهيد يا أزوجي وقيل وحال يراهدي عمها أديركيد يا أزوجي وقيل وحال يراهدي أخوها ولالكيد يا أزوجي لسابق سعادتها خديجة روغيدي وحاليها مدكي صدقي أيون أزوجي لسابق سعادتها خديجة روغيدي لقدي سيون أزوجي معناه سعادة سؤال أبدي الأزلية لو نسبيه وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم وحو قد شدي معناها ها خديجة وحو قد شدي كل أولادي كل قرمك واجدي لكن كل أولادي النبي أولادي سدمان أيو قد شدي صلى الله عليه وسلم إلا الذي كي ماه سمى النبي هو الذي جابه باسم الخليل ودايجي مجعيس وكوه مجعد دريم مثل إبراهيم لو مجعد دريم oo nabiga Ibrahim lagu sameeyay ma aha inta kale ayada u dhashay nabigeena sallallahu alayhi wasallam عبر أدقي اللهم يا الله إلهي قبره نبي الصوبان قبرك إله أدقي قبرك عصو الكريم بعرف إلهي وكأدقي عرفت عصو شدي أود درن أما درنان لون اسمي من صلاة إيه وتسليم من بتقلي أهو ولما بلغ مركو جاري نبينا صلى الله عليه وسلم 25 لباتن إيشان مركو جاري أو سنة من سنة إلى سنة منت قريش أيا وحي دستي الكعبة كعبة أيا دستي لانسداعها لأجل انسداعها كعبة دلدلاعي دي درتيها أي مركز دستي بالسيول داديالو إلى دلدلاعي
daadiyadaasoo al-abdaxiyati ee abdaxa loo nisbeeyey macnaha markii daadiyadaas xoogale ay ku yimaadeen markii daadiyadaas xoogale ay ku timaadeen markaas kadib ayay waxaa la yidhaahday ay dhiseen hadda waxaa la yidhaahday nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxaa la yidhaahdaa kacbada waxaa la dhisay sanadkaas markuu gaar nabigeena 35 markuu gaaray ayaa kacbada dhiseen macnaha kacbada iyo Quraysh dhiseen marka arimaha ay u dhiseen waxaa la yiraahdaa dhowr arin waaye waxaa la yiraahdaa kacbadii waxa ka dhacay waxaa la yiraahday gubniina ka dhacay macnaha gubasho ayaa ka dhacday marka gubashadaas markay dhacday oo kacbada xoogaa ee dhibaato soo gaartay saas darteed u dhiseen waa la yiraahdaa maxay yeelay naaga waxaa la yiraahday meesha ku unsanaysay kacbada ku unsanaysay marka meesha ku unsanaysa ama idinkii ku unsanaysa dhimbila kamid ah inay soo dulduuleen ayaa kacbadii dharkeeda ku dhacay markaas ay kacbadii sidaas waxa la yiraahdo ku gubatay oo sidaas marka waxa la yiraahdo gubasho ugu timaaday marka sidaas loo dhisay waa la yiraahdaa waxa kale inta la sheegaa daad inuu soo galay oo darbiyada marka kacbada oo dildilaaciyay iidan waa la sheegaa waxa kale oo la sheegaa dada markaas waxa la yiraahdaa kacbada xuliyadeeda iyo biladaheeda ay xadeen oo dahabka ka sameysneed way xadeen waa la yiraahdaa waxyaabo fara badan marka ayaa la sheegaa hadda wuxuu noo sheegay waxa la yiraahdaa linsidaaciha bisuyul abdahiya biso noo sheegay markay dildilaacday oo ay ku dhacday macnaha maartay daadkaas ay ku dhaceen wa tanaazacu way doodeen في رفع الحجر في وضع الحجر حجرك دجنتيسا ay ku doodeen carabtii xajarkaas oo aswad ee madoobaay xajar aswad ka yaa dajinaayo mawdici oo rugnigiisa ah meeshiisa yaa dajinaayo yaa dhigaya taas ay ku doodeen وقالت كل قبيلة نحن أحق بوضعه قبائل walba oo qabiilada carabta kamida waxay yiraahdeen anaga dajinayno anaga ana xaq u leh anaga meeshan dhigayna sidaas ay yiraahdeen sidaas ay sheegeen وتنازعوا في رفع الحجر في وضع الحجر يكون معناه كدودين حجر كاسو الاسود اي مذوباي حجر اسود فكل معناها كل او من رؤساء قريش كميدا اراد كل وحو دوني رفعه حجر كاس كوريليديس ايو دوني ورجاء كل جنه رفعه ورجيو مid walba oo qabaa'ilka kamid ah asaga isku rabo inuu qaado si markaas waxa leedahay sharaftaasi oo u yeesho macnaha وعظم القيل أراهدي وعظم القيل أرشدي والقال أرشدي معناها أيام مركز وحواي بضطيب قيل وقال أيام بضطيب معناها هذا إلا الضباشو هذا لا فرق بدن للي ما سيدا معناها بضطيب مركز هذا الكين سيلتي وتحالفوا وحي سولة دارتين على القتال دقال وعربتي وحير هذه أنك أنقاذين دقال وقوية وحا حوغيستي العصبية عصبيتي أيا حوغيستي ثم مركز كدب تداعوا وحي سووعين إلى الإنصاف قرصون حيرا انتاز دقال لهان oo dhibaato iyo dagaal oo ka dhici lahaay horta cadli aan sameeyn cadaalad aan sameeyn wa fawadu al-amra arinka waxay u bandhigeen ilaa bi ra'yi mid u saaxiib ay ku bandhigeen ra'yigaas oo saaibin ee asiibay iyo waanaatin macnaha tartiib simid u saaxiib ah qof waxa la yiraahday oo aan fudfududeen oo degdeg aan ku jirin saaxiibo ra'yi ah aan arintan u bandhigno sidaas yiraahdeen si markaas waxa waay macnaha aan waxa waay aan u gaarno xal aan u gaarno فحكم صاحب الرأي وحو حكميي بتحكيم أول داخل مد سوغلا كان ugu horeey laga xaakimiye lashadiisi ayuu markaas xukmiyay qofka ugu horeeyo soo galo min baab sadanati qudamada baabkeeda baabkaas xaqiida ka soo galo sadanadaas oo ashaybiyati ee waxa loo nisbeeyay macnaha shayba loo nisbeeyay baab la yiraahdo sadanati shaybiya baabkaas qofka ugu horeeyo ka soo galo aan ka xaakim yeelano qofkaas arinteena u dhiibano asagana kala xugun aan dhahno sidaas marka waxa la yiraahdo lagu faatixisay lagu dhameystay فحكم صاحب الرأي أو صاحب العقل وحو حكمه بتحكيم أول داخل مد سوغلا كان ugu horeey ka xaakimiye lashadiisa ayuu xukmiyay min baab sadanada macnaha qudamada baabkeeda xaqiida ka soo gala baabkaas oo ashaybiyati loo nisbeeyo
وحال يرهدا شيبيدا سحال يرهدا كعبدا فرهيدا أضيق هاي جرينا ليرهدا وابن عثمان ابن ضلحة ابن عبد الدار أيا ليرهدا وبابك أصيغ وحال يرهدا وكسو قالوا بابك وضع سدنة الشيبية بابك أصل يرهدو قفك أوهري وكسو قالوا قفك سحال يرهدا أنو ديبانو أرنكينا أنو ديبانو فكان النبي أيا وحو أهاي صلى الله عليه وسلم فكان النبي الصوبان أيا وحو أهاي أول الداخل متسوقل كان أغهري أيو أهاي من ذلك الباب كسوقل قفك باب كسوقل وأغهري النبي أيا أهاي فقالوا مركز وحي يرادين هير قريش وحي يرادين مقرين له صلى الله عليه وسلم بوصف أمانته ayagoo nabiga sallallahu alayhi wasallam amaanadaas tilmaanteeda u qirsana waxay yiraahdeen hada midkaani al-amiin midka la aaminay way sidaas yiraahdeen oo nabiga sallallahu alayhi wasallam naminimada ka hore waxay dhigi jireen amiin muhammadul amiin al dhihi jireen wa kulluna anaga dhamaanteena naqbaluhu waan aqbalayna wa nardaahu wa nakaraadna qanayna dhamaanteena waan aqbalayna wa nakaraadna qanayna sidaas ay isugu raaceen فأخبروه وحي أخبرين النبي صلى الله فأخبروه قريش هو النبي صلى الله عليه وسلم وحي أخبرين بأنهم أيغا رضوه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون راضي النقدين يا بأن يكون النبي إنه أهاب صاحب الحكم حكمك مثل أصاحبك إنه أهاب إن يكون راضي النقدين أي أخبرين في هذه مدة في هذا مدة لحديدة تاسو الملمي وحال يراهدا معناها ما رغتي دعدده في هذه مدة في هذا مدان تاسو الملم نازلده مدان نازلده ku dhacday oo dhibaatada in nabiga sallallahu alayhi wasallam asaga uu xugmiyo saaxib al-hukm inuu ahaado inay ku raad naqdeen u sheegeen wa waliyahu midkii tawalina inuu naqdeen way u sheegeen wala waliyahu macnaha fi hada al-mulmi iyo waliyahu macnaha iyo waliyahu saaxib al-hukm inuu ahaaday iyo waliyahu midkii tawalina inuu ahaaday فوضع النبي وحو دجي صلى الله عليه وسلم الحجر حجرك يا وحو كدجي على في ثوب مر دشيد كدجي حجر الاسود كو النبي صلى الله عليه وسلم مر دول صار مر لا دغاي مرض يا حجر الاسود كي لا دول صار معناه ثم امر النبي وحو فري ان ترفعه حجر كاسي اني كر قادو جميع القبائل كدمانتو اني كر قادان اني كر يلان الى مرتقاه مكان كريلديس اني كر يلان قبيل والباب ميل هكا قبط مرضاس كدبنا ماشي لقينا هلقيه او لو كر يلان سيداس النبي صلى الله عليه وسلم حكمي فرفعوا وحال الى قريش وي كر يلان هو حجرك اي كر يلان الى مقره مكان سغنانشيسي مكان سغنانشاس حقيسي او كر يلان او من ركن هاتي كمداس ركنيgeeda تاسو البنيه اسمها ووضع النبي صلى الله عليه وسلم هو حجر كاسي بيده ايو كدجيي يداسو الشريفه شريفه في موضع عيسى دحديس حجر كموضع عيسى موضع عيسى دحديس ايو دجيي الان هذا او موضعه وبناه النبي صلى الله عليه وسلم وانا دسي ماشي هذا او موضعه ايو النبي صلى الله عليه وسلم كدجي ماشي صار markaas waxa la yiraahdaa laga dhisay عبد أدقي اللهم يا الله إلهي يو قبره نبي قبره سأدقي قبره سؤال كريمة إيه وناكسنا بعرف إله كأدقي عرفتها سو شدين إيه درن أو من صلاة إيه وتسليم نبتقلي الله سبحانه وتعالى